ninka ugu ildeerba dadka ugu ayaan daran waxaa laga arkaynaa isaguna noqdee dictatoriyad waxaa lagu gartaa inaan sharci lagu soconayn rule of law oo ah wax dowladnimadu ku salaysanta dowladnimo waxaa sal iyo asaas u ah rule of law wax la yidhahdo waa xukun ku dhisan sharci dictatoriyad wax sharci ma jiro meel dictator ka jiro waxaa sharci ah dictatorku wax uu soo saaro wuxuuna ku shaqeeyaa dictatorku waxa la yidhahdo degree oo aad decreto ee soomaalida u taqaano uu soo saaro taasaa u sharci ah waa tii maxamed siyaad barre uu ku shaqeyn jiray waa tan ninkan eritrea haysta uu ku shaqeeyo waa tii uu ku shaqeyn jiray mengistu xeele maryam waa tuu ku shaqeyn jiray mabuto sese seko waa tii bedel bukaasi uu ku shaqeyn jiray meel walboo dictatorka jiro waa degree le lagu shaqeeyaa dastuur laguma shaqeeyo sharci ma jiro wuxuu afkiisa ka yihahdaa sharciga waddanka oo dhan wuxuu ku jiraa calacashiisa isagaa la barayaa laga barayaa nabadii asaa laga barayaa noloshii asaa laga barayaa ummaddu inay istafarta xataa waa ogtahay maxamed siyaad barre xilligiisa qof ka safri kara airbortka xamar ma jirin basaboor si lagu qaataa adkayd baryaa lagu soo qaadanayay iyo in la tuugo marka qaran ma jiro waxaa jiro real estate waa wax uu nin leeyahay keligiis ninkaasaa u barya tegaysaa adigu bas dalkaas wax aa ku leedahay ma jiro waxa uu adig kaas iyo kaas ayaad qaadanaysaa baar wixii dhacay oo dhici jiray xilligii dictatoriyadu jirtay meel walbaba marka tan maanta jirto iyo dhibaatadii dictatoriyaddii in maanta dib loogu noqday waa nasiib darro weyn oo qof kastoo soomaali wax gartaa uu la yaabaya ha markuu yimid ba hawshii ugu horreysay oo la qabtaaba ku salaysnay dictatoriyad waxayna ka bilaabatay iyadoo si sharci darro ah wax qaanuun ah oo loo maray iyo wax sharci ah dowlad fal kasta ay fulinayso waa inay sharci u kaashataa tallaabo kasta oo dowlad ay qaadayso waa inay tahay tallaabo sharcigu u ogolaanayo sharciga waddanka u degsan wixii aan sharci u ogolaanayn kasta oo la sameeyo oo sharci darro ah waa qaab mafiyism ah iyo morianism waa wax aan marnaba dhaqan dowladnimo lahayn waxaana ay ka bilaabatay dictatoriyadiisu dhiibistii nin mujaahida oo xaqu dirir ah oo dagaal xaqa ku jiray oo dadkiisi u dagaalamayey dhul soomaali ka maqan u dirirayey inta habeen cad la soo qabtay indhaha looga soo duubo gaalkacyo cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ciidanka xoogga dalka ka tirsanaa ee gacanta loo geliyey etoobiya taliskii TPLF EPRDF ayada oo aan wax qaanuun ah ama extradition law sharci yani wax iswadaarsi annaga Ethiopia na dhex oolin na dhex ooli karinba na dhex mari karin maadaama dhul iyo diin iyo xuduudo aan isku haysana gumaysi sameeye ah taasay ka bilaabatay maalintaasi cadayd ayay ahayd ummadda Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeesto iska qabato dictatorna sideedaba waxaa la qabtaa markuu bilow yahay mar hadduu xididaysto meel laga soo qabto male sida kaliya lagu qaban doono waxay noqonaysaa dhiig badan in la daadiyo waad ogtahay dhiigga ku daatay in waddankan maxamed siyaad barre laga saaro dhiiggii bilowday 77 dagaalkii 77 markaan ka soo noqonay dhiiggii bilowday ilaa 1991 socday kadibna ka sii daray markii meesha asaga uu ka baxay ilaa raad xumadii iyo calool xumadeedii ilaa maanta inala socoto dhibka laga soo maro waa la socotaa 40 iyo meeqa sana ka soo wareegtay 77 43 sano maanta oo 2020 aan marayno oo lala daalaadhacayo dictatoriyad kale haddii meesha sanadkan ama sanad soo socda la ceyrsho dagaal uu ku baxo iyo dhiig consequence ka dhalan doona in la qiyaasaa la rabaa maanta laga fakaro oo ubadka Soomaaliyeed la badbaadiyo dumarka iyo carruurta la badbaadiyo dadka ku le'an doona cawaaqib xumada ka imaan doonta falalka dictatoriyad ee waddanka maanta dagaalada looga horreeyay meel walba qabaa'ilka inta la isku hubeeyey ay isdilayaan oo gada wax ka socda laba juf ay isku dilayso oo midna asaga uu hubeeyey midna Kenya ay soo hubeysay xabadda ay isku haystaan saakay waxa ka dhacaya galmudug aad u jeedid in la isku hub urursanayo ya waxa ku sii socda Puntland aad u jeedid waxa la dabacsan yahay Somaliland aad u jeedid South West waxa ka dhacay gumaadka aad la socotid Hirshabelle cagta lagula tunto la baabi'iyay gobolka Banaadir lagu hanjabayo leeyahay waa la idin laynaya dadka haddaad soo baxdaan oo cid banaan bixi karta cid hadla karta jirin de waad aragtaa waxaan ay taas meesha nageynayso waxay nageynaysaa waxa weeye dhiig daata iyo halaag dowladnimo dimuqraadiyadeed ku socota cadaalad ku socota waa dhab laba jeer uu cadeeyay inuusan doorasho dhigayn lana tartamayn doonayana inuu iska sii haysto meesha mar waxa ay mar uu qudbeynayay lahaa
wadamada dariska qaarkood uu tusaale usoo qaato uu yidhi dowladahoodu de isma bedelaan waa soo taagan yihiin waxaa loo baahan yahay dowlad iska socoto joogta meeshii iyo mar uu lahaa continuity aa loo baahan yahay inaan sii joogo uu lahaa aniga keliya sii joogaya meeshii marka waa clear laba caddeyn oo waaweynaa oo concrete ahaan hortaala oo ah inuusan rabin inuu meesha ka tago marka doorasho ma dhigayo mana damacsana inuu dhigo hadduu dhiganayana wuxuu rabaa inuu dhigo doorashooyinkan dee wadamada dictatoriyadda o dhan doorashooyina laga dhigaa wax doorasho ku sheega laga dhigaa laysaga shubto oo dee 1986 ba maxamed siyaad bare doorashuu sameeyey may ahaa blue iyo red midab blue ah iyo mid guduudan la dhigay oo la yidhi ha iyo maya qof ku ridana ayadoo qoorta la wado xabsi lagu tuurayey wixii ummadda o dhan ay marka haa ku shubtaa iyadoo baqaysa in la dila ay ka caabsanayaan marka dal saas laguma hayn karo taarikhdaas waa soo aragnay wax cusubaa loo baahan yahay weji cusub waxaan soo marnay iyo halaagii na dhexal siiyey 77 ilaa haddaan dhiigga daadanaya 43 sano inaan maanta dictatoriyad dib intaan ugu laabano isla halaagi kale mar kale u dhaco dee waxaan maraynaa dee waa ummad waxaan noqonay halaag u joog ah dadka taa ku taageersana dee waa dadaan dad iyo dal midaan dan ka lahayn haddii ummaddu dhiig ka dhex daato la kala qaxo la baaba'ona aan dan ka lahayn aad mooddo dee dad waxay ku khasaarayaan jirin wixii baaba'aya aan dan ka lahayn ama iska cuqdadaysan ama iska emotional ah ama iska qabyaaladaysan oo leh dad baa wax laga duminaya reer hebel baa wax la yeelaya u aaminsan laakiin weji qarannimo beena ku gabanaya dad noocaasa iska jira oo iska dhibaataysan waan leenahay ilaahay caafiyo marka dee waddanka waa aragnaa cid kastoo wax garatana way aragtaa dictatoriyaddan meesha ay namalkinayso inay tahay halaag iyo dhiig daata iyo wixii dhacay 1990 iyo kala cararka meesha ka dhacay iyo hogaamiyihii dictatorka ahaa cararkii u cararay u qaxay qaxitaanka u qaxayna ay noqoto inuu qabiilkiisa u qaxo marka maanta farmaajo meeluu asaga ku qaxaya maba jirto iyo meeluu ka bixi karo ku qaxi karo dhulkii shabaaba meel walba fadhiya dadkiisina de waa kuwa uu isku diray oo laba jufo xabadaha isugu dhiibo weegan islaayo isdhameeyey dhiigu ku daadanayo jufo asaga hubeeyey taageerayo ciidamo meelaha uu ka soo qoro uu dulgeeyey uu ku saaciday iyo jufo kale oo iyaduna Kenya hubka hesho saaciday ay meeshii ku dirirayaan balad xaawo de waa u jeedaa marka waa meeshii ugu dambeysay ayay maraysaa aniga waxaan kula talin lahaa hadday tala yeelayaan Soomaaliya xukun dictator ah kama shaqeynayo inay dimuqraadiyaddii lagu doortay ay horta ilaaliyaan oo aysan gacmahooda ku dumin oo taariikh mugdi ah waaba ka tagayaan oo taqalba dhagaxa ugu horeyse iyo wixii lamid iyo weerarka guriga Cabdiraxmaan Cabshukuur iyo gumaadkii bay dhaba laga geystay iyo dadka afka la qabtay loo diidan yahay inay magaalada Muqdisho ka hadlaan dadku aysan shucuurtooda cabiri karin banaanbax ku cabiri karin qoraal ku cabiri karin hadal ku cabiri karin maskaxdooda ka cabiri karin inay dimuqraadiyaddii horta lagu doortay ay sugaan marka koobaad kadibna dadku u ogolaadaan in ay shacbigii ciduu rabo uu doorto ciduu rabo inuu xilka u dhiibto sidii shalay ayagaba baarlamaanka Soomaaliyeed uu aaminay baarlamaankan maanta ay baabi'iyeen oo kala daadiyeen oo baarlamaan jirin sharci jirin waxba jirin waddanka oo dhan uu gacanta galay dhowr nin oo tirsan gacmihiisii say rabaan ay ugu ciyaarayaan dan iyo hela ay kala yihiin jirin haddii ummaddu baaba'ayso iyo hadday iscunayso iyo hadday dirirayso ayagu dantooda kaliya inay kuraastaas ku fadhiyaan ummadina ay qoorta isu wada geliyaan dhinac walba meel walba isaga direen discourse isugu direen furmihii dagaalka isugu direen meel walba ka dileen inay dib isugu laabtaan oo ay badbaadiyaan inaan waddanku civil war gelin hadduuba ku jiraaye inaan dhiig iyo colaadihii dib loogu noqon kuwa ka sii xumaa ee sagaashameeyada waddan ka socday ummadda Soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa inaysan ku kala qaybsamin waxaan oo ay meel uga soo wada jeestaan damiirkoodii u soo noqdaan dadnimadoodii soo ceshadaan u midoobaan inay dowlad sax ah oo cadaalad ah oo sharci ku dhisan oo dimuqraadiyad ah oo horumar u jihaysa oo baahida iyo faqriga iyo gaajada iyo jahliga waddanka jira ka saarta inay qabanqaabadeeda galaan oo aysan wixina ama koox ugu kala qaybsamin ama qabiil ugu kala qaybsamin ee damiirkoodu dareensiiyo in wax wanaagsan waddankan laga helo fiiri waxaa jira nin mufakkar oo muslim ah qarnigii 14aad oo la oran jiray ibnu Khaldun gaaladan iyo cilmigooda dhan waxa loo aaminsan yahay inuu yahay mufakkarka u weyn ee cilmiga sociology-ga iyo taariikhda sida uu hindisay oo iqtiraacay wax cusub u alifay marka wuxuu leeyahay fikrad cusub afkaar dhahaysa faqri meel hadda ku aragtid iyo gaajo iyo baahi iyo iscunitaan iyo ummad baktisay ayada uun iscunaysa is caayaysa is dilaysa haddaa aragtaan wax noocaasa
waa ummad damiirka beeshuu yiri waa dadnimadeedii damiirkii ay lumisay marka damiir mar haddii lumisay aflagaado dagaal iyo dil iyo iscaayin kuwa wax u sheegayay oo lahaa war iswanaajiya war cawradiina data war isqurxiya war sharci samaysta war qaanuun ayaa dowladnimo ku socotaa dictatoriyadii intaa lagu duulay iyo intaa la qabtay iyo galmudugga la xoreeyey intaa dowladnimo maaha waxa saa haddaa dowladnimo u fahanteen dee waa ku dhibaatoonaysaan waana ku cimri tegaysaan marka isku soo noqda miirkiina soo ceshta damiirkiina dib u nooleeya marka qabanqaabiya sidii lagu heli lahaa dowlad saxa waddankan isweydiiya 30 sana u dambeysay hawo la ilaalinayo iyo bad la ilaalinayo mana ilaalin karo xukun dictatoriyadan laguma ilaaliyo marka aan u tashana dalki saanse ma aha dictatoriyadan waxba laguma gaarayo intaa wax laga saar intaa laga saaray berri isla meeshaan lagu laabanaa iyo wixii aan ka soo baxnay